madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka dalka Ruushka u fadhiyi doona Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Mikhail Golovanov. danjiraha markii waraaqaha aqoonsiga laga gudoomay kadib waxay madaxweynaha ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wada qabsi. danjiraha oo ku hadlayay afka madaxweynihiisa ayaa midnimada iyo madaxbannaanida dalka Soomaaliya ku tilmaamay inay tahay mid muqadas ah. sidoo kale danjiruhu waxa uu sheegay in ay ka garab siin doonaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wixii ay uga baahato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. danjire Mikhail waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo u soo gudbiyay fariin uu ka sido madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, fariintaas oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeya, gaar ahaan dhinacyada bini'aadanimada, isdhexgalka dhaqaale ee labada dal u dhaxeeya iyo sidoo kale sidii tababaro ay u heli lahaayeen shaqaalaha rayidka iyo laamaha ammaanka. ugu dambeyntiina danjiraha Ruushku waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo soo gaarsiiyay martiqaad uu madaxweynuhu kaga qayb gali doono shirka Afrika ee ku qabsoomi doona Sochi sanadkan dabayaaqadiisa.